سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحير كالينا إن شاء الله مدوين كان وحلا جهل هاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركز جعلانتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم بنكالينا إله القرآن كسوع كلية هاي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واحد هذا هداتهين كوجع الإلهي الراع إلهي أيا إذن جعلانه وإذن دم بدافي إلهنا واكي دم بداف بدن ونحرس بدن. نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيري لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. إلهي معناه حوي رب الرومين ميسان إلا أد يجتع علاتان والدكين يعرورتين يدتك أردن. نبينا صلى الله عليه وسلم waxa uu wada kulmay akhlaaq wanaagsan geesinimo deeqsinimo qofkii arkaa uu ka heebaysan jiray qofkii la dhaqma oo bartana uu jeclaan jiray nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam diinta islaamka dadka dhan waa soo gaarsiiyay ummadan waa u naseexeeyay kalimadoodana waa mideeyay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa weeye wax walba oo ma aragtay muslimiinta khayr ugu jira waa u sheegay إلهي وحو القرآن كله هي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وحوي حقيقة إن كنت يشاء ونكسن إذن كو سقناتي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم واحد أوقاتان جعلك الرنطة إلهي يا رسولك أي كينيسو إن لو عمل فله قرآنك يا أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو صحيحة على مدها جعلك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكم ذا باليري إن لا جعل هذا توحيدك إن لا دبق توحيدك إن لا جعل ذاتك توحيدك إن ما رتي ذاتك الدعاء دينت إلهي ما أركتي ويرى إلا جعل هذا وحوي ذاتك الدعاء إلهي كبقية وذاتك دعوة ما رتي جارسينية إن الله ويرى مقعية حنحن وحوي لا إسكال عليه وحن هذا الكي كسو جبينها يا إن شاء الله إلهي هنقو أرساقه جعلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم راعد ديسا شفاعة ديسا إن أخلاق ديسي إن أخلاق نون نقطه وبالله التوفيق. بغرك بغر برهان بغر موسى وارتشرف تكله خيارتة سواء عمل يكون كان أنتي إنه أستيسي أنتي سواء جبتيبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanka kan waxa uu ku saabsan yahay boqorkeena boqor burhaan boqor muuse oo jaaliyada beesha tanade ee wadankan Sweden gaar ahaan magaalada Gothenburg ay qada sharaf iyo kulan ay kaga dalbadeen kulanku intaas ku saabsan yahay طبعا اسوريسي اسبرشو iyo sheeko wadaag baan ka maraan doonin
aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinayaa kulankiina aad ka soo kulanteen oo aad aqbasheen boqorkana waan uga mahadcelinayaa waqtigiisa qaaliga ah oo uu na siiyey oo uu nala qaatay kulankan haddana waxaan doonayaa haddii rabbi idmo inaan boqorka guddoonsiiyo hadiyad boqor markii hadiyad la siinayo haddee boqor waxa aad haysato waxa ugu qaalisan ama aad ugu jeceshahay baa la siiyaa soomaalidu waa isxamataa annagu hantida aanu leenahay hantida noogu qaalisan uguna jecellahay baan hadiyad u bixinaya haddii rabbi idmo wabilaahi towfiiq waa kitaab jaamacu quraan ah 14 boqolka qowlkii ilaahay weeye boqorku kitaabka quraanka aad buu u akhriyaa waxaan rajaynaynaa mid lagaa dhaxla inuu noqdo marti sharafta agaasimayaashii xafladdan quruxda badan dhammaantiin odayaasha waxgaradka kale ee ka soo qayb galay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأكدر يا قبلها وأكدر إن شاء الله. وحنا ملايين يا هذا المهرين ونبضون كهالشيء مناسبة يوحي كوساب سنة. كليه وحا إلهي مهديسة بقر كيني boqor burhaan boqor muuse oo maantay goob joog nala ah oo aan la damaashaadayno oo la qadaynayno oo intaasaa waxay noo tahay sharaf af soomaaligii halkaasuu satigii kaga jiraa laakiin afka faraaciyiinta sati waxaa lagu oran jiray kuraasta shirka markii lasoo fadhiisto kursi ka duwan oo ama dhexdaa la dhigaa badanaa gees lama dhigo kursi ka duwan baa boqorku lahaa jiray kursigaasaa sati la oran jiray halkaana isu bedeshay marka waxaa soo haray arbe annagu hadda waxaynu u naqaanaa maroodiga kooxda maroodiga kan xukumaha ayaga faraaciyiinta waxaa loo oran jiray abaaduulaha ciidanka arba loo oran jiray marka kelmaddii baan meel kale u isticmaalay laakiin way isu dhowdahay habar oo kale annagu habar waxaynu kaba dhigannay islaamtu markay weynaato oo da'gaarto gabal noqoto ma aha sidaas afka qaamuuska horta waxaa ku qoran hab iyo bar inay tahay tii habka baraysay laga bilaabo markuu bannaanka u soo baxo naacawda arko sida habka loogu qabanayey habka uu cunayey loogu qabanayey lagu xijiyo sida loo noolaado sida loo istaago sida loo socdo sida maaragtay daadah loo yiraahdo sida haddii ilaahay kuu roon yahay dharka loo xirto sida loo dhaqmo sida dugsiga qur-aanka loo aado sida habka tii baraysay waa hab iyo bar baa annaga qaamuuska inuu ku qoran faraaciyiinta waxay u ahayd murwada madaxweynaha murwada boqorka meeshaynu ka dhiraano habarta dalkaas ninka xukuma islaantiisa ma ahan miyarooyinka iyo talabaad iyo tasaddexaad iyo maaha dareetadaas waxaa qaadanaysaa waa midda isyaarada ah weeye taasaa la oran jiray habar marka madax dhaqameedku halkaasu ka soo bilowday mar haddii boqorkii hadlay dee hadal inooma harin oo go-aan dabadii guugu weeye waynu qadaynaynaa waa kifaaxaynaa waa isu ducaynaynaa waa gartagaynaa asalaamu calaykum aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa intii soo abaabushay kulankan waxgaradka iyo khiyaarta ka soo qayb gashay gabdhaha dhallinyarada culimaa udiinka nabadoonka dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u malaynayaa kulankii labaad weeye oon beesha waxgaradkeeda inkastoo kulankii hore oo kan ka horreeyey intan uu ka koobnaa oo aanu khiyaarta odayaasha qaybtood is aragnay laakiin xafladdan quruxda badan iyo kulankan taariikhiga ah aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa marka hore waxaynu isu dardaarmaynaa cabsida rabbi waxaynu ilaahay ka baryaynaa inuu tawfiiqda ina waafajiyo
waxaynu joognaa dhul aan dhulkeenni ahayn, bay-ad aan bay-addeenni ahayn, waxaynu joognaa meel cirifkii ugu dambeeyo adduunka. waxa weeye inaynu mar kasta cabsida rabbi iyo ku xirnaanta alle aynu soo dardaaranno, inaynu xaragga rabbi qabsanno. muhiimaddu taas weeye oo kolley mar kasta dee culimmada iyo waxgaradkii iyo khiyaartii halkan joogta oo intaa wacdigii uu shiikhu inuu ku baraarujiyey oo jeclaanta rasuulka iyo maxabada rasuulka iyo allah runtii iyada inuu ku dhammayd. laakiin waxaan baraarujinayaa marka hore inaynu ilaahay dankiisa arrinka aynu xarigga rabbi qabsanno aynu ku walaalowno insha allah bismillahi kariim. arrinka labaad waxa weeye walaalayaal, saad la socotaan waayadan waxaan joogay yurub meelo ka mid a iskandinafiyanka. meelahaan soo maray oon hadda halkan iyo tabori ayaan ka bilaabay kulankii ugu horreeyey, dabadeedna stockholm, waxaan uga sii gudbay norway, oslo ayaan tagnay. haddana waxaan ku aadanahay insha allahu inaan copenhagen iyo denmark inaan tagno. muhiimadda un waxa weeye inaan dadkeenna wacyigelino, guud ahaan soomaali sidii ay nabadgelyadii iyo isjeclaantii iyo wadajirkeedii sidii usoo noqon lahaa, sidii qarannimadii inaga burburdhay iyo dhibaatadii ina gaadhay looga soo kaban lahaa. runtii meelahaanu tagnay dadku aad iyo aad bay usoo dhaweeyeen, aad iyo aad baana loogu soo dhaweeyey. waxaan filayaa insha allahu meelaha noo harsanna ilahay idinkii sidaa iyo sida kasii fiican inaan insha allahu aan kala kulmi doono. muhiimadda ugu weynina waxa weeye inaga runtii wadankeenu wadan qaniya oo aad iyo aad u qiimo badan oo aan la heli karin, oo garan ka dhaan 24 sano dad dowlad la-aanah way baabi'i lahaayeen ummad kaleeto. dhulka aynu haysano iyo barwaaqada ku jidha ayaa iyo ilaahay oo dad masaakiina oo aan runtii islaama oo dhibaato un dhexdooda intay ka dhacday haddana xalkeedii garan waayey ayaynu nahay. ilaahay baa inoo sahlay, laakiin barwaaqada wadanka iyo sida uu yahay iyo muxuu ayaa waxa keentay waqtigaa dowlad la-aanta ah iyo dhibaatadaas iyo mashaakilka lagu jiray in wax badni ay dib u dhaci iyo wixii la malaynayay oo cid allaaliyo ciddii wadankan burburkiisa gacanta ku lahayd siday rabtay ay u noqon weydo. marka waxaa la gaaray rubuc qarni ayaynu hadda ku jirnaa dhibaatada. waxaa la joogaa xilligii aynu marka ka gudbi lahayn insha allahu biidnillahi kariim. taasna waxa weeye wadajir iyo inagoo isku mid ah, inagoo xarigga rabbi qabsana, xagga rabbi u noqonna, oo markaa wixii inaga khaldamay iyo sidaynu u sixi lahayn inaynu xooga saarno insha allah. waan filayaa beeshan halkan oo tanada daarood waxa weeye beelaha ugu muhiimsan marka soomaali la yiraahdo, xagga aqoonta iyo horumarka iyo isku xirnaanta intaba. waan rajaynayaa insha allahu inaad gacan weyn ugu siin doontaan arrinka. waxaan idinka rajaynayaa insha allahu taladiina iyo tusaalihiina iyo heeliyahooba inaad arrinkaa ila garab istaagtaan. ilaahay dankiis, ilaahay idin barakeeyo. waxaan si gaara u salaamayaa gabdhaha. waxaan leeyahay meel kastoo aan tagana waan lahaa, gabdhuhu waa waxa inoogu muhiimsan, waa dadka inoogu muhiimsan, waa asaaska guriga. waa meesha warshadii ay ka soo baxayeen jiilasha soo socda inay noqdaan yacni dad mustaqbalka dadkii lagu xisaabtami lahaa. taariikhda soomaalida marka la fiiriyo waad garan kadhaan inaga marka waxaynoo ku muhiimsan wadankeena marka laga hadlayo ama dal marka laga hadlayo waxaa la dhahaa dalkii hooyo. luuqad markii laga hadlayana waxaa la dhahaa luuqadii hooyo. hooyadu marka qiimaha ay inoogu jidho iyo meesha ay inoo joogto waa garan kadhaan. gabdhaha marka waxaan leeyahay si gaar ah inaad ku dadaashaan sidaad u soo saari lahaydeen caruur tarbiyadaysan, sidaad idinku weliba gaarba idin tahay gabdhihiina ku dhaqan dhulkan qurbaha ah, in reeruhu aanay inaga burburin, inaan akhlaaqiyaadka iyo dhaqanku inaga burburin, inaan caruurtu inaga lumin, inaad xoogga saadhaan oo waqtigiina gelisaan insha allah biidnillahi kariim. ilaahayna ha idin barakeeyo. raggu kolleytaba waxa weeye dee culayska iyo dadaalka iyo mar kasta iyaga ayuu ku dhacaa, laakiin haddaan la iskaashan oo rag iyo dumarba aan lala marxaladan adag iyo noloshan qallafsan oo qurbaha aan lagu dadaalin, wax badan baa inaga khaldami kara. marka waxaa la rabaa inagoo gacanta isaysana oo rag iyo dumarba ku dadaalayna sidii aynu marxaladan adag iyo noloshan qallafsan iyo barafka iyo dhibaatada
iyo dhaqankeenna oo iyo islaamnimadeedna sidaynu u adkaysan lahayn inaynu iska kaashanno oo gacanta la isqabto